الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. waxaynu in shaa allahu tacaala wixii suurtagala ka tilmaami doonaa xadiidka nebiga calayhi الsalaatu wasalaam uu leeyahay almu'minu ya'lafu wa yu'lafu walaa khayra fi man laa ya'laf walaa yu'laf wa khayru الnaasi anfacuhum linnaas. xadiidkaasi oo imaamu daarqutni iyo saaxibu addiyaa almukhtaara baan filayaa soo arooriyeen, sheekh alalbaanina silsiladiisa saxiix uu ku tilmaamayo. xadiidka nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku sifaynayaa qofka mu'minka ah iyo nooca wiyey. qofka mu'minka ahi waa mid lagu soo hirto, isna dadku ay soo dhoweeyaan oo aanay kahanin. yacni waa qof dhaqankiisa iyo akhlaaqdiisu ay keensanayso dadku inay ku soo hirtaan oo ku soo ururaan. dadka badh ayaa dadaan dadku jeclayn oo aanay u imanin, amase markay arkaan isagoo soo socda ay ka weecdaan, ama aan golahu fadhiyo aanu ahayn golo dadku ay ku soo hirtaan, ama meeshuu deegaanka ku yahay aan cidina u soo qasdinin. laakiin qofka mu'minkaa buu nebigu ku tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam waa qofkaasi dadku ay ku soo hirtaan, ee dadka soo dhoweeya, ee soo duma, iyaguna ay soo dhoweeyaan. kadib buu nebigu wuxuu yidhi calayhi الsalaatu wasalaam wa khayru الnaasi anfacuhum linnaas. waa gobolka aan xadiidka rabno caawa inaynu sharaxno. wa khayru الnaasi anfacuhum linnaas. dadka waxa u khayr badan buu nebigu yidhi, dadka waxa u khayr badan anfacuhum linnaas, ka dadka ugu nafci badan, ugu waxtar badan. qofka mu'minka ahi meeshuu joogaba waa waxtar. si awgeed buu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay dadkaba waxa ugu fiican qofka dadka ugu waxtarsan. waxtarku iyo qofku waxa uu qabanayo oo la tilmaamayo inuu qofka muslimka ahi uu yahay dad oo dhan qof anfaca. lama laha waa anfachum lilmu'miniin lama odhan. xadiidka u fiirso, wa anfachum linnaas baa la yidhi. waa dadka qofka ugu waxtar badan. isla xadiid labaadoo jaabir laga warinaya imaamu muslim soo saaray, nebigu calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu leeyay man istaطaaca minkum an yanfaca akhaah falyafcal. markii ay sheegeen cid wax dadka ku akhridaa inay jirto oo wax ku tufta, ayuu nebigu wuxuu yidhi calayhi الsalaatu wasalaam man istaطaaca minkum an yanfac akhaah, qofka idinka mid ee awooda walaalkii inuu wax taro, falyafcal, ha yeela buu nebigu yidhi calayhi الsalaatu wasalaam. haddaba nafcigaasi nafci dunawiyana wuu noqon karaa, nafci ukhrawiyana wuu noqon karaa. qofka waxtarkiisu, dadku inta badan waxtarka adduunyay jecel yihin, laakiin waxaa ka mudan waxtarka aakhiro. ilaahay subxaanaه wa tacaala qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa bini aadamku dhammaantii inuu khasaare ku sugan yahay in alle soo reebay mooyaane. wاlcasr ina اlinsaana lafii khusr ila اladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaat watawaasaw biاlxaqi watawaasaw bالصabr. rabu الsamaawaat baa dhaaranaya. markuu dhaartay kadib ayaa ilaahay wuxuu leeyahay ina alinsaana lafii khusr. dad aayaddaa u fiirsato, marka hore waa qasam iyo dhaar baa lagu bilaabay, marka labaadna waa jumla ismiya, marka saddexaadna inoo xarfu tawkiidaa lagu daray, marka daba shanaadna maxaynu dhahnaa laan baa lagu daray. intaasoo dhamme luga alcarabiya waa adawaatu tawkiid bay yidhaahdaan.
wax markaad rabto inaad adkayso oo senteniskaa sida ugu adag ee loo sheegi kara aad u sheegto ayaa ilaahay u sheegaya subxaanahu wa tacaala ilaahay intuu dhaartay buu wuxuu leeyahay aadanuhu insaanka qofka la yidhaahdaa khasaaru ku sugan yihi wax kasta uu yahay yaa laga soo reebay waxaa laga soo reebay bes aladiina aamanuu وعملوا الصالحات وتواasوا بالحق وتواasوا بالصبر kuwa afar sifo laga helay iimaan laga helay camal wanaagsanna laga helay xaqana dardaarma sabirkana isu dardaarma xaq iyo sabirkaba isu dardaarmaya yacni waa qof diintana ku camal falay dadka kalena diinta gaadhsiinaya waxay yidhahdaan qofka daacigee dadka diinta ugu yeedha وأنفع الناس أينما حل وقفك وحتر وبضن ملك استو جوجبا مثلا الرسوش أيام بيضو ودتك كوادي بني آدم كحق وياده ودتك كوادي اسكت يدتك إن النار كبد باديان ودتك كوادي دتك وياده إن الجنة وهرسيدان سيدا أوجدي يجا وأنفع بضن آخرية دون بمبادئ دتك أنفع سيكانا haddaynu qur-aanka in yar u fiirsanno suurad baa qur-aanka ka mida la yidhaha suuratu yuusuf suuradda ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu kaga warramayaa nebigaasi nebi yuusuf la yidhaahdo qisadiisii oo dhammaystiran waa suuradda qura ama meesha qura qiso kaamila oo saa u dherarin maca tafaasiil hay qur-aanka ku soo aroorto waxaan uga dan leenahay markaa meelo yaroo ka mida qisada inaynu tilmaamno nebi yuusuf wuxuu noqday qof waxtara maxaa caddaynaya waxtarkiisa intaynan meel kaleba tegin dembi aanu lahayn baa lagu qaaday dabeetana xabsuu galay ilaahay wuxuu leeyay wadakhala macahu sijna fatayaan laba wiil ayaa xabsiga la galay labadii wiil way riyoodeen mid wuxuu ku riyooday isagoo khamri tuujinaya oo samaynaya midna isagoo khubus madaxa ku sida oo shimbira ka cunayaan nebi yuusufna cilmiga ru'yada ilaahay baa baray subxaanahu wa tacaala ru'yada sida loo fasiro ru'yada iyo fasirkeedu waa cilmi ru'yadu mar waa min ashayطaan marna waa min allahi subxaanahu wa tacaala ta min allahigi waa juzun min alwaxyi riyada dhabta ahi markaa imaa inay tahay sidaad u aragto aanay ta'wiilba u baahnayn laakiin in badan inay ta'wiil u baahataa baa la arkaa ka ta'wiilka u baahanayna qad yusiibu almufasiru aw almu'awil waqad yukhti waanu asiibi karaa waanu qaldami karaa oo dee dadkii u aqoon badnaa nebigu subaxii markuu fadhiisto salaada subax ayuu odhan jiray war xalayaa riya arkay waanu fasiraa dabeetana saxaabadu waxay sheegi jireen wixii ay arkeen dabeetana wuu u fasiri jiray maalin dambe subax baa nin wax sheegay abubakar baa yidhi ilaahay rasuulkiisiyo bal aniga maanta igu dah anigu aan fasiraya abubakar baa fasirkii u dhaqaaqay markuu fasiray ayuu nebigu ku yidhi akhtaata wa asabta inna waad garatay inna waad la weyday baa la yidhi idan hadduu abubakarba la waayayo cid kalena inay la waayi karto fasirka waa iska macruuf calaa kulli xaal nebi yuusuf ambiyada iyada tooda waa waxyi ilaahay uu waxyoodo nebi yuusuf riyadii uu arkay wiilashaasi riyaday arkeen waxay leeyihin noo fasir laakiin meesha aan uga dan leynay waxa weeyaan aayadda gebagabadeeda innaa naraaka min almuxsiniin bay leeyihin isagoo maxbuusa ayaa waxay leeyihin waxaanu aragnaa inaad tahay qof muxsina qof ixsaan badan qof dadka hagaajiya inaad tahay ayaanu ka markhaati kacaynaa bay leeyihin idan isagoo maxbuus ah ayuu muxsin ahaa oo maxaabiista iyo dadkan uu la xidhan yahay wanaag u sheegayaa khayr kale ka faa'iida ah uu ahaa qof muxsin oo soo dhowaynaya waxaa kaloo aad ka garan kartaa walaaladiisii godka ku riday ee dabeetana kaga tegay ee ilaahay badbaadiyey beri dambe ay u yimaadeen oo wada hadal dhex maray waa kii walaalkii kala hadhay dabeetana waxay yidhaahdeen yaa ayuha alcaziizu ina lahu aban shaykha
وحليه أبو وين وعين كاسيو كوا سودا إننا نراك من المحسنين بي ومرخاتك عيانيا إسقوا قرنا يعني كوي قد ككور ذيهين أي هذانا يجوا حي ومرخاتك عيانين ومحسين هاي أو يجوا وين بدن وصم فلي أو إحسان سميي وهنو وحبابا وجيسندي هنو وحبابا بلين مر لبعض ظلمين ينا لهايين كان يرهدوا حضي مدى ولا لهايين وكهر رياتوجا هابي ليل سجيه هرتاجي إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل ولا الكيس هرتوجها وأنا يوسف قايل هذا يا نكاي بين تاسك الشيء هدنا وحي وجا مرخاتك عيارين وسقوا محسن يا هي سدان ولا رقمي إسلا النبي يوسف دينو قصدي سامال كلكة المامنو صدحات إسقوا حبسك كتيرة والظلم كحرا والدم بيانكو عضانين لغو قاضي وناغو مرمرسية وسمايين ويشتكيين وولي بالحري markii ay u muuqatay boqorka inuu yahay niman waxba geysanin markay u muuqatay kadib sa quraanku tilmaamayo ay u cadaatay nabi yuusuf inaanu waxba geysanin ayuu hadana xidhay iyagoo leh warka laga sheegay guriga boqortooyada iyo waxa si loo ilaabo isagaan kayska saaro oo isagu xabsiga ha galo xabsigu galay isagii ay dulmiyeen xabsiga ku xidhnaa ayaa boqorkii riyooday boqorkii markuu riyoodayna xaashiyadiisii iyo dadkiisii buu sheegay riyadii oo yiri yaa fasiraya waxay yidhaahdeen adgaasu axlaam garan mayna baa la yidhi riyadatan si loo fasiro ma garan karayno akhiiran labadii nin uu riyada u fasiray oo midna uu yidhi waad bixi doontaa midna yidhi adigu bixi maysid kii baxay goormuu ayuu wuxuu ku yidhi war bal boqorkaa waxaad xasuusisaa kayskaygii dee dembi layma haysta haddana meesha waa iskaga jiraaye bal xasuusi markii uu xaashiyadii boqorkii iyo meelihii yimi waabuu iska ilaabay nebi yuusuf baa badkalu iska galay kiibaa xasuustay markaasuu yidhi xabsiga waxaa jooga nin fiican oo riyooyinka fasira boqor haddaad i dirto oo ninkaa ii dirta inaan u tago riyadaadii fasir baa loo helaya taawiilkeeda waa la garan doonaa markii dadkii kale riyadii garan waayeen buu yidhi baloorad u tago soo fasir dheh waa u yimi waxay idhahdeen boqorkii riyadan buu arkay yuusufu ayuha sadiiqu aftinaa fi 7 baqaraatin simaanin ya'kuluhunna 7 cijaafun way u sheegteen warkoodii waxaad nooga warantaa bay idhaahdeen 7 saac oo naaxnaacsan oo 7 engegani cunaya iyo 7 saabuulo cagaaran iyo 7 kale oo yabis ah engegan nooga waran bay idhaahdeen adiga hadda inta boqortooyo ku xidhato dawladiyo haddana ku dulmido ay ku yidhahdaan riyo noo fasir maxaad odhan lahayd warardo iska taga waxba idin fasiri maaye ila meel iclaabay kugu haystaane waliba waxay intaa ka sii daran haddaad ogtahay riyadu inay sheegayso inay jabayaan maxaad yeeli lahayd inay jabayaan nabi yuusuf muu odhanin war gaalatiinay dhaafa muu ku odhanin war waa nimankii dulmiye waxba idin fasiri maayo iska taga muu ku odhanin intaanan idin fasirin xabsigayga sii daaya muu odhanin horta kayskayga ka warrama ee bilaash isagoon waxba kale ka codsan waxna samaynin ayuu riyadii u fasiray weliba wuxuu u sheegay khitadii uu ku badbaadi lahayd waddanka masar markaasi oo uu deganaayey 15 sano nidaamka dhaqaale ee waddankaasi ku badbaadi karaa buu nebi yuusuf ka warramay wuxuu yidhi 7 sano oo barwaaqaa baa idin soo maraysa 7 sano wixii aad beerataan waxaa cunaysaan mooyaane waxa kale sideeda kayd ugu dhiga ha taabanina 7 sano sanad walba barwaaquu noqon raashin fiican baa idin go'i doona waxa aad beerataan inta yaraa cuntaan mooyaane inta kale kaydiya 7 sannadood kaydkiinu ha socdo waxa ka dambayn doona buu yidhi 7 sannadood
oo abaar ah oo aan waxba idin bixi doonin toddobadaasi waxaa cunaysaan wixii aa kaydsateen toddobadii sannadoodee hore kadib waxaa iman doona buu leeyahay caamun fiihi yugaathu nnaas sannadaa barwaaqaysan doontaan oo riyada wixii loo sheegay waxay ahayd 7 iyo 7 sac iyo 7 sac ama 7 saabuul iyo 7 saabuula hadday 14 ka ahayd sanadka 15aad xagguu ka keenay culimmadu yidhahdaan dee haddii 7 barwaaqaa la sheegay oo 7 kaloo abaara la sheegay dee waxa ka dambeeya waa inuu noqdo sanad barwaaqa ah ilaa haddii kale waxaa la odhan lahaa 8 abaaraa ku xigaysay nebi yuusuf markaa wuxuu u sheegay 15 sannadood khitadii ama balaankii waddanku uu kaga bixi lahaa abaarta iyo dhibta buu sheegay waxna kama dalbanin waxna muu weydiisanin waxay tilmaamaysaa qofka muslimkii inuu yahay qof waxtara waxtar buu yahay hadduu dhul gaaleed joogiyo hadduu dhul muslim joogaba hadduu dad muslime la nool yahay iyo hadduu dad gaala la nool yahayba waxtarkiisa koowaad oo ugu muhiimsani waa inuu dadka naarta ka badbaadiyo waxtarka koowaad waa inaad dadka diinta u sheegtid waa inaad dacwo ugu yeedhid waayo qofka noloshiisa adduunya ta aakhiraba waad badbaadinaysaa haddaad jidka quman tusto waxtarka labaadna wixii adduunye aad tari karayso ama caqli aad ku kordhin karayso waad ku kordhinaysa muslimku gaalkoo dham isku mid maaha gaalka muxaarabka aad dagaal iskula hortaagantiina dee goob dagaala joogtaan waa masalo laakiin kaa wada degantiina aan dagaal idinka dhaxaynin in wax la taro lama diidana saa awgeed buu nebi yuusuf gaaladii xidhatay ee uu la deganaa waddankaa dadka ku nool oo dhan si uu u badbaadin karo ayuu u sheegay khudadii ay ku badbaadi lahaayeen bale waxaad garan kartaa xadiidka bukhaari warinayo markii muslimiintii maka joogtay gaaladu ay dhibtay aad dhibaatadu ugu badatay ayuu maalintii dambe abubakar is yidhi hijrood dhulka xabashida iyo meelahaas ka qabo maku ka baxa meel barkil khamaad la yidhaahdo markuu marayo ayaa waxaa la kulmay ibnu dughina nin la yidhaahdo ninkani waa odaygii qabiilo qaarra la yidhaahdo mushrikiina qabiilo gaaleed ayuu yahay suldaan ama ugaas ama caaqil waxaynu sheegno ninkii baa wuxuu ku yidhi abubakar buu gartay war abubakarow ayna turiidi ya abubakar buu yidhi xaggaad ku socotaa abubakar wuxuu yidhi akhrajanii qawmi tolkay baa i soo saaray maka kamaan baxeene tolkay baa i soo saaray dabeetana waxaan rabaa dhulkaa ilaahay inaan iska socdo rabbi caabudo saa'ix inaan noqdo saa'ixa waxaa la yidhahdaa berigii hore waxaa jiri jiray dad cibaado isaga baxo safra oo meel ay u socdaan oo gaari aanay jirin iska dhaqaaqow waxaan rabaa buu leeyahy inaan saa'ix dhulka ilaahay ku noqdo oo ilaahay carrigiisa ku caabudo oo iska tago ile tolkay isaar buu leeyahy ibnu daghina wuxuu ku yidhi abubakarow adigoo kale nin la saaro ma tihid macquul maaha yacni abubakar oo kale in la soo saaro waayo in lagu saarana ma aha inaad adna iska baxda taasina sax maaha buu leeyahy sababtu waa maxay fa innaka tuksibu almacduum watasilu الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق wuxuu ku yidhi adigu waxaad ahaan jirtay dadka aan waxaysan qof wax siiya waxaad ahaan jirtay dad nin qaraabada xidhiidhiya waxaad ahaan jirtay qofka culus nin culayska ka roga waxaad ahaan jirtay nin martida soora waxaad ahaan jirtay mashaakil oo dhan nin dadka uga gargaara abubakar markaa maxaa lagu sifaynayaa qof naaficad bulshada ku dhex ahayd baa la leeyahy qof waxtara oo bulshadu waxay u baahan ninkani waa nin gaaleed kama warramayo aakhiro iyo dadkaad hanuunin jirtay kama warramayo isagu wuxuu wax ka warramayaa waxtarkii adduunyo saa daraaddeed wuxuu leeyahay war nin tolka xidhiidhiya oo masaakiinta wax siiya oo dadka dhibtu ku timaado dhibta ka qaada oo martida soora oo nawaa'ib ilxaq oo dhan dadka ugu gargaara baad ahayd
سادرادد نين لبحية ما تهد بولي ابن دغنا وارد وكلي هي أبي بكر ووارد خديجة يدليشن يسي نبي محمد نبي نمديس خديجة رضي الله عنها مركي النبي عليه الصلاة والسلام وحي وكسود دقيقة وادو عبصدي سوى عبصنا يبو غوري يمي ولا يددا وأيكا خديجة مركها وحي تري والله لا يخزيك الله أبدا إلهي باكو دارته إن ربي ولقا كهوشينين نبي محمد هداتا هاي بل هاي أركي ما يسيد بيلادي وأنا وحي يقوه الرئي وايو حيث دا أولادي دقا كيسي بيكا وربيسا انت نبي بكر لغو سفايو كالكو سفاينيس وحيلا دا واحد هايدن قرابة حديدية وداد كان وحي سوحسية وداد كان نبتو كنت مادا نبتك قادة ومرتضى صورة ووراق قاسي سمية قف وراق سنة وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان دي قف وراق سنة إلا سبحانه وتعالى نبما تصيب إليه إذا أما أبي بكر هالنقطة أما النبي هالنقطة عليه الصلاة والسلام وحا لوغو tilmaamayo inay dad waxtara bulshada ku dhaxahaayeen oo mid waynu isla qarsano diin inay dadka ugu yeedhayeen oo aakhiro oo ah wax muhiimka ah way adduunka wax kasto aad ku soo mara waa wax yar adduunka waxa joogta waa 50 60 70 sanadood marka cimrigaaga la eego nololeed waa inta inaha ugu yar bay ka mid tahay si aakhira tagi oo aan laba dhimanaynin qofka aakhiro sababtiisa ilaahay kugu badbaadiya waa kaaga nafci badan yahay dunida cidii wax ku tarto dhan waayo dunida waxay ku tareen waa wax 60 sano oo lagu badbaadaa bay ahayd haddii bay wax weyn ku tareen laakiin qofka aakhira ku badbaadiya waxaad ku badbaada kuu sheegay ama kuu tilmaamay ama ku tusiyay noloshaadii dhabta ahayd buu badbaadiyay cadaab ilaahay buu kaa badbaadiyay nololaan dhammaan lahayn ayuu khayrkeeda ku tusay sharkeedana kaa badbaadiyay idan qofka muslimka ahi waa qof dadka inuu badbaadiyo aakhiradoodii iyo adduunkoodaba ku dadaalaya nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam dadkii u shaqeeyay waxaa ka mid ahaa wiil yaroo yuhuudiya ayaa nabiga shaqaalihiisii ka mid ahaa dabeetana maalintii dambe waxaa loo sheegay wiilkii inuu xanuunsanayo oo guriga aabihii uu jiifo nabigu calayhi salaatu wasalaam wuu soo baxay dabeetana gurigii wiilkuu yimi wiilka madaxiisuu fadhiistay wiilku aad buu u xanuunsanayaa marka nabigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam wuxuu arkay inuu sii socdo aslim buu ku yidhi waryaa wiilow war islaam wuxuu ka cabsanayaa nebigu wiilkaasi intuu gaalnimo ku dhintay inuu cadaab gala de dabeetana wuxuu ku leeyahay nebigu calayhi salaatu wasalaam war islaam wiilkii markaa aabbihii buu eegay aabbihii baa wuxuu ku yidhi aطic abalqaasim maqal wuxuu nebi maxamed kuu sheegayo yuhuudda iyo dadkii wakhtigaa noolaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam inuu nebi iyo cid waliba waa garanaysa laakiin dana iyo masaalix kale iyo wax kaloo ilaashanayaan bay u diidanaayeen waxaad ka garan kartaa kuwii ugu waaweynaaye ka soo horjeeday muxuu aha abu jahl culamada taariikh waxay soo naqliyaan inuu lahaa reer banu hashimi annagu waanu beretami jirnay laba qabiilo loolamaanu ahayn waxbay bixiyeen waxbaanu bixinay kanbay sameeyeen wax waloo ay sameeyeenba waa la samaynay buu leeyahay nagamay badinin haddaan reer banu makhzuum nahay nagamay badinin reer bani cabdimunaafkani ama reer bani hashimkani nagamay badin ilaa ay markii dambe sheegteen buu yidhi nebi baa naga mid ah haddaanu anagu nebi weyne buu yidhi wallaahi baa nankooda u rumaynaynin abi jahl wuxuu naarta la galay qabiil buu difaacayay suu reer u difaacayu naar galay reer hebel hadday nebi heleen buu leeyahay annaguna aanu nebi weynay kooda raaci mayno haddii aanan nebi helaynin nebigu calayhi salaatu wasalaam markaa inuu nebi yahay dee mucjizaadkiisii baa muuqday dhaqankiisii baa muuqday akhlaaqdiisii baa muuqdatay waxyiga ku soo degayaa muuqday cid waliba waa garanayso aragtaa inuu nebi yahay laakiin masaalix kale dadku markay masaalixda ilaashanayaan hiraqal boqorkii la odhan jiray markii looga warramay nebiga calayhi salaatu wasalaam tu waraaq u diray nebigu uu akhriye looga warramay ee uu waraystay nimankii safarkee u yimi oo 14 su'aalood ama 13 su'aalood weydiiyey ee backgroundkii nebiga oo dhan loo sheegay ayuu wuxuu yidhi sidaa aad sheegaysaan hadduu yahay halkaa aan fadhiyaa buu qabsan doonaa
haddaan awoodana waan dhaqaaqi lahaa buu leeyo meeluu joogo haddaan tegi karayo cagihiisaan maydhi lahaa buu tilmaamaya dabeetana wuxuu isugu yeedhay xaashiyadii boqortooyadoo dhan iyo wadaadadii kiniisadda iyo wixii oo dhan buu isugu yeedhay wuxuu ku yidhi warrinkaasi wuxuu sheegayaa waa xaqa aan raacno albaabadana wuu soo xidha meeshii uu kula shiraya albaabadu wada xidhay tana wuxuu ninkaasi waa xaq wuxuu sheegayaa aan raacno mar quraa la qayliyo waa la cararay bes soo noqda buu yidhi idinkaan idin eegayun mowqifkiinu meeshuu taagan yahay dee kursigu waayayaa ilaane siyaasiyiintu diin la-aanta in badan kursigaa badda oo haddaad kursigaa ka riixi mayso wuxuu is yidhi kursigaaga hawaaye marka Hiraqal wuxuu naarta ugu xagga gaalnimada ugu sii socday wuxuu ilaalinaya kursiga idan nabi maxamed inuu xaqiya uu garanayay odagan yahuudiga markaa inankiisii wuxuu ku yidhi yaraa aطic abalqaasim waxa uu ku sheegaya aqbal dabeetana wiilkii yaraa baa shahaatay islaamay nabigu calayhi salaatu wasalaam uu ku farxay markaa islaamnimada wiilkan yara wuxuu leeyahay alxamdu lilaahi aladii anqadahu min annaar waxaa mahadle waan mahadinaya waxaan ammaanaya ilaahi kaa yar naarta ka badbaadiyey wiilkaa u shaqaalaa buu nebigu wuxuu kala cabsi qabay inuu naarta galo idinku kuwa idin shaqaalaa maxaa ku samaysaan wax diinta u sheegay miyaa leedin mise waxaad tidhaahdaan markay sii baxaysana sii baadh inta kalena ha shaqaysa yani materialkun baa ka fekertaan waxay dadkan inaa badbaadisaan hadduu kaa soo hor baxo qof bini aadan oo gubanayo dab suran yahay maxaad samayn lahayd waxaad isku dayi lahayd inaad damiso socankaa ma aha qof bini aadan oo gubanaya hadduu kaa soo hor baxo asaad baktiin karto waxaad isku dayi lahayd inaad damiso qof bini aadam oo indhale hadduu kaa soo hor baxo god daba ku socda maxaad yeeli lahayd meeshanoo dab ka shidan yahay labada indhoodna ula iyo uu kusii socda maxaad samayn lahayd waad ka qaban lahayd xataa haddaanad ka qaban karin waad qaylin lahayd war ka joog baad odhan lahayd waayo waxaad ka naxaysaa qofka bini aadamku inuu meesha ku dhaco kuwa naarta kusii socda waa sidaa dadkan aad arkayso ee gaalnimada kusii socda waa indhalaayiin meel adagna waa ku socdaan waxayd inaad diinta u sheegtaan oo anfacdaan aakhiradoodi iyo adduunkooduba markaasuu anfacmaya wiilkaa yar nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka dadaalayay inaanu gaalnimo ku dhimanin dabeetana intuu gurigoodii ugu tegay isagoo bukoo jiifa ayuu wax u sheegayay innaguna kuwii gurigeenna joogay baynu wax u sheegi kara laanahay kuwii gurigeennaba joogay daa inaynu gurigooda ugu tagnee ayaynu wax u sheegi kara laanahay idan ayuha alaxiba qofka muslimka ah waxaa la rabaa inuu qof naafica noqdo qof waxtara inuu noqdo muslimku inuu wax matare noqdo maaha inaydin meesha u timaadaan dadka jeebabkoodu inana baadhataana wixii lacaga inta gurataan inaa iska tagtaan dabeetana maaha muslimku kaa caalamulislaami duni maanta waddanka maanta muslimiin ugu badan niman tujaaroo muslimiin baa tegay inuu diinta u sheegay oo islaamiyey soo waddan indonesia la yidhahdo maydan maqal ama dadkan malayga la yidhaahdo waa dhowr boqol oo milyan xawaaley 300 oo milyan waddan muslim oo ka badani ma jiro waddannada muslimiinta oo dhan iyaga ugu badan maca daalik jihaadna laguma furanin cid kalena ma tegin waxaa la yidhaha niman tujaaro muslimiin baa tegey dabeetana nimankaa dhaqankoodii iyo akhlaaqdoodii iyo waxsheegoodii unbay ku islaameen idinkoo tujaara maba idaan imana idinkoo faramadhan baa timaadeen markaa lacagtii ka ururiseen ma u sheegteen markaa war islaama oo ilaahay diintiisa qaata oo qofka muslimka waa in waxtar noqdaa waa in wax laga faa'iidaa haddaad wax adduunye ku kordhin karta ku kordhi haddaad wax aakhiro ku kordhin kartana ku kordhi weliba midna waan kuu sheegaya alcibaada almutacadiya baa ka nafci badan alcibaada alqaasira cibaadada gudubta ayaa waxay ka fadli badan tahay cibaadada kooban ee gaaban maalan adigu maalintii imise salaadood baad tukan kartaa shantaada faralka iyo waxoogaa sunnayaale bes soo intaa maaha waxaa jirta dariiqo kaloo aad salaado badan u tukan karto midaan tukan haddaad salaada u tilmaamto uu tukado markuu shantiisa tukadaba adna shan kalea lagu qoraya 10 baad tukataa markaa adigu
haddaad afar diinta ku soo darto waxay shaqaystaan oo dhan iyagana waa loo qoraya adna waa lagu qoraya laadaa sababaya maanta nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam qof kastoo islaama intuu ajar leeyahay in leeg buu leeyahy waayo isagaa sabab inoogu ah inay diintani maxay inay soo gaadho saxaabada maxaynu u leenahay rag la gaadhaya maaha dee diinta iyagaa soo xambaaray wixii muslim ka dambeeyo o dhamme waxay shaqaystaan saxaabadaa gaadhsiisay miisaanka saxaabaday saaran yihin culammadii waaweyneed imaamu shaafici wixii madhabkiisa ku dhaqmay oo dhami isaga miisaankiisay saarmayaan idan qofka muslimka ahi qaab labaad uu cibaadaysan karaa jiroo ah cibaada mutacadiya inuu la yimaado inuu qofkan sabab ugu noqdo inuu khayrka sameeyo nabigu calayh isalaatu wasalaam wuxuu tilmaamayay man dalla calaa khayrin falahu midlu ajru faacilih ninka dadka khayrka u tilmaamaa wuxuu la mid yahay baa la yidhi sidii kii sameeyey haddaad wanaag dadka u sheegto in leeg baad leedahay keebaa idiin roon markaa inaad waxoogaa xoolaa heshaan iyo inaad waxaa soo ajara heshaan inaad waxoogaa xoolaa helno ayaa laga yaabaa waqtigeenna inta ugu badan le inaynu ku bixinno ajarku waa iska 5 salaadoodoo qallalan oo aan in badan ba ilaahay la xusin salaadana waxaa la aqbalaa un intaad ilaahay ku xusto nabigu calayhi salaatu wasalaam waa kaa tilmaamaya qof baa tukada dabeetana aan salaadiisa lahayn ilaa tusucaha humunuha wuu soo waday nebigu qaar baa 10 meeloodoo meel 9 meeloodoo meel 8 meeloodoo meel waa la soo waday idan isku mid ma nihin mid baa 10% le 20% 30% qof baa inbuu ajar helaya saf qurana waa ku wada jiraa qof walba ajarkiisu wuxuu ku xidhan yahay inta uu iimaankiisa iyo soo jeedkiisa iyo xusku ilaahay xusaya uu yahay ajar la'aantaadu waxay ku xidhan tahay intaad bakhaarkii joogtay wax raraysa haddana aad halkan taagantay safkana aad ku jirto meel kale aakhiro salaaddii maa tukan lagu odhan maayo lagu qabsan maayo laakiin de qabsi qura kama hadlayna waxaynu ka hadlaynaa inaynu ajar helno ajarkuse wuxuu ku xidhan yahay inta aad markaasi cibaadaadkaasi samaynayso waxaan leenahay markaa cibaadada mutacadiga ah ee gudubta oo ay ka mid tahay taa aan sheegaynee ah inaad dadka diinta gaadhsiiso oo islaamka u sharaxdid qof waliba wuu helayaa cid isaga ka liidata maalan haddaad adigu faatixada si fiican u taqaano dadka waxaa ka buuxa qaaraan faatixada aqoon dee kuwa haddaad u dhigto aadna ajarkii baad helaysa idan qof aan wax sheegi karini ma jiro qof aan wax dhigi karini qof aan dad waanin karini ma jiro sidaa awgeed waxaan leenahay nafcigu cibaado mutacadiya inuu noqdo ayaa kaaga khayr badan walidalik buu nebigu calayhi salaatu wasalaam caliy bn abi aalib markuu u diray dagaalkii khaybar baa la galay maalintii koowaad baa la furan kari waayey qalcado waagii hore waxaa jiri jiray dee derbi weyn oo laisku soo wareejiyo oo magaalooyinku leeyihiin oo xeryaha dagaaladu leeyihin oo waxaanay leeyihiin oo aan socotadu waranka kan sita iyo faraska kan watiyo waxaan oo dhamme aanay geli karin in la burburiyo mooyaane markaa meelihii qalcadaha waa la geli kari waayey maalintii hore dagaalka laguma guulaysan maalin labaadii laguma guulaysan maalintii dambuu nebigu yidhi nin ilaah iyo rasuulkiisuba jecel yihiin baan calanka u dhiibaya raayada ayaa ciidanka hogaaminaya dabeetana nebigu dadkii wuxuu yidhi calimeye waxaa la yidhi wuu bokooraysan yihi ramad baa ku dhacay daaf u yeedha buu yidhi oo waa ugu tufo u duceeyey ilaahay indhihii waa uu bixiyey dabeetana calankaa loo dhiibo waxaa la yidhi ciidanka hogaami maanta adigu cali markuu ciidanka hogaaminaya nebigu uu la dardaarmay haddaad ciidan dagaal gelaya la dardaarmayso maxaad kula dardaarmi lahay dagaalka si fiican u gala meeshiinayaan meel la idinka soo dhicin socankan maaha janan ciidan wato oo ciidan meel gelaya qofka caadigii wuxuu kula dardaarmi lahaa ma waa waxaa laakiin nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka dardaarmaya waxa weeyaan dadkaas inay badbaadaan buu jecel yahay dadku inay badbaadaan ayuu jecel yahay sidaa awgeed buu nebigu wuxuu u tilmaamay cali waxaa laga yaabaa dadku dagaalka markay galaan
haniimo iyo xoolo iyo waxbaa la soo helaya nebigu wuxuu ku yidhi lan yahdiya allahu bika rajula waaxida mid qura inuu kuu soo islaamaa wuxuu kaaga khayr badaya galacasas xoolo badan inaad furataan waxa ka fiican buu nebigu leeyahy in qof quri diintaa ugu yeedhaan oo islaamo saa daraaddeed dee dadka dagaalka laguma qaadana waxbaa loo sheegaa oo ka horeeya markaa nebigu wuxuu dareensiinaya caliy bnu abi aalib qasdigu inuu yahay dadkan in la badbaadiyo qasdiga koowaad inuu yahay maxay dadka in la badbaadiyo badbaadadaa dadkuna inay uga fiican tahay adduun dhammaantii xoola la hela iyo waxaasoo dhan inay ka fiican tahay waxay isweydiinta leh marka oo u baahan dadka muslimiinta inay xoog uga fakeraan sidii cibaadadaada aada u badin lahayd ee ilaahay subxaanahu wa tacaala khalqigiisoo dhami kuugu ducayn lahaa isla nebigu wuxuu tilmaamayaa ina allaha wa malaa'ikatuh wa ahla asamaawaati waalard xata annamla fii juxriha wa xata alxuut ilaahay iyo malaa'igtiisa iyo dadka samada waxa samada degan iyo waxa dhulka deganba xataa quraanjada buu nebigu leeyahay godkeeda ku jirta ama kalluunka badda ku jira la yusalluuna waxay ku sallinayaan waxay ilaahay naxariis weydiinayaan ilaahayna uu dembigooda dhaafaya ayo calaa mucallimi innaasi alkhayra dadka qofka khayrka bara dadka qofka samaha bara innaga waxaa laga yaabaa waxaynu samaynaynoo dham inay maaddo u badantahy oo xataa dadka khayrka dhigaya hadduu shaqo ka yaro fiican helo inuu iskaga tagaa baa laga yaabaa tenshankiina sii jeeda markaa soo galo sheekhu calaa kullin nebigu calayhi الsalaatu wasalaam waxau inoo tilmaamayaa ilaahay rabu الsamaawaati wاlard iyo malaa'igtiisa iyo malaa'igta tirada badan lee samada degan ama ciddii samada degan iyo waxa dhulka degan ilaahay uu nebigu ka gaadhsiiyey habad namla udhaanjo god ku jirta ama kalluum bad ku jira kolay ku tahay intaasoo dhammi inay ku sallinayaan ilaahay salligiisuna oo dembi dhaaf uu ku siiyo intan kalena waa kuu ducaynaya rabbay kuu baryaya intaasoo dhammi maxay iyay u ducaynayaan waa mucallimi innaasi alkhayra xadiiska imaamu tirmidi baa warinaya waana xadiis saxiixa calaa mucallimi innaasa alkhayra qofka dadka khayrka bara qiimaha intaa leeg wax dhigista dadka ama wanaagga dadka loo sheega ma inoogu fadhiyaa xataa kuweena dhigaya mise shaqo ka yara mushaahar badan haddaad hesho waad iskaga tegaysa yani waxaa laga yaabaa inay maadaun ku qiimaysantahy haddii shaqada khayrka oo la dhigo meel lacag ka yaro badanaad helaysa inaad xaggeeda iska qabataa bay u badantah laakiin qofka muslimka wuxuu ku xisaabtaa salaf ulumma qaar baa 40 sano koo meel u fadhiyay inay dad quraan u dhigaan iyo wax kasta samaysan karayay le waxaanu maqalnay nebigu ole calayhi salaatu wasalaam khayrukum man tacallama alqur'aana wacallamahu bimujarad inuu xadiidkaa nabiga maqlay calayhi salaatu wasalaam uu nebigu leeyay waxaa idinku khayr badan waxaa idinku fiican xagga alle waxa ugu raganimo badan qofkii ilaahay kitaabkiisa bartay waxyigii samada ka yimi dadkana u dhigay oo gaadhsiiyey waxyigaasi haddaba waxaan leenahay qofka muslimkaa nebigu calayhi salaatu wasalaam hadduu ku tilmaamay khayru nnaasi anfacuhum linnaas dadka waxa u khayr badan ka dadka ugu anfaca badan leh anfacaa uu soo gaadhsiiyey carabtu berigoodii jaahiliyada waxba iska akhrii jirto dadka ku tufi jirtay ilaahayna waa ku bogsiin jiray qaar ka mid a markaasay qaar yidhahdeen ilaahay rasuulkiisiiyo waxbaanu ku tufnaa dadka balka warrama bal iisoo bandhiga buu yidhi ii sheega waxaa tuftaan wuxuu yihi wixii bay u akhriyeen
dabeetana wuxuu nebigu yidhi mar haddaanu shirki iyo ilaahay kayrki iyo la baryo waxaas ku jirin iska wada ku tufa hadday dadka anfacayso kadib uu nebigu wuxuu leeyahay dadka waxa uu haddaad walaalkaa caawin karto haddaad walaalkaa anfici karto falyafcal ha sameeyo ninkii walaalkii caawin karaa caawimada aad caawimaysa ama nafcigu taluu noqon karaa aad siisoo fiican talo fiican ood siisuu noqon karaa tilmaam aad siisaa buu noqon karaa wax sheeg buu noqon karaa wax siin buu noqon karaa wax allaaliya waxa dunida laysku anfaco noocuu doonaya ha ka ahaadee buu noqon karaa wuxuu mar labaad noqon karaa oo kaa ka sii fiican qofka aakhiradiisa inaad anfacdo oo ah inaad caqiidadiisa u saxdo oo inaad cibaadadiisa u saxdo oo inaad akhlaaqdiisa u saxdo oo ah wuxuu aakhiro iyo adduunba ku badbaadi lahaa inaad u sheegto marka kelmadda waxaan kusoo koobaya anigu dhankayga hadduu nebigu yidhi dadka ninkaasa u anfac badan ambiyadii iyo saxaabadiibana laga tilmaamayo dadka inay anfici jireen fii dunyaahum wa fii ukhraahum wixii adduunkooda ku saabsan iyo wixii aakhiradooda ku saabsan bay inay anfacayeen dadkiina dhulkan jooga waxaa laydinka baahan yahay xoogsiga lacagta qudhi inaanu idiin muuqane xoogsiga aakhiro inuu idiin muuqdo oo aakhiradiina inay u xoogsataan xoogsigii ugu fiican ee aakhirana waa inaad diinta xambaartaan oo faafisaan oo muslimkana gaadhsiisaan kuwaan muslimka ahaynna aa gaadhsiisaan oo ilaahay diintiisu ay faafto saasaad adiguna ajarka ugu badan ku helaysaa وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين